Assalaamu calaykum. Soo dhawaada asxaabta. Waxaan ka codsanayaa hadaa kanaan ku cusubtahay inaad subscribe tiraahdo, sidoo kalena inaad muuqaalka like saarto. Shan talo oo ka mid ah sifooyinka guusha. 1. Aamin naftaada kuna kalsoonow. In aad aaminto misna aad ku kalsoonaato waxa aad doonayso in aad qabato. Haddaba si aad u aaminto go'aamadaada aad qaadanayso, waxaad u baahan tahay in aad siiso waqti aad ku ogaato waxa ay yihiin iyo waxa kugu kalifaya in aad ka miro dhaliso. 2. Samee dadaal fara badan. In aad geliso dadaalkaaga ugu badan misna aad joogtayso, waayo waxa aad waqtigaaga ugu badan geliso ayaad natiijadooda heshaa. 3. Waxaad gaari doontaa hadafkaaga inta aad naftaada aaminsan tahay oo aad iska indhatirto cid kasta oo kaa soo horjeeda oo aad difaacdo riyadaada. 4. Dhammaan inta aad arkayso halka sare ee ay ka dhalaalayso xoog iyo kalsooni, waxa ay la dagaalameen dagaaladii ugu adkaaya nolosha. Noloshuna waxay u qaaday mawjado duruufo ah, dhibkaas oo dhanna waxay markabka u soo kaxeeyeen dhinaca xeebta. Baroorta oo soo gaadhay waxay qorsheynayeen, hadda rumayntoodu waxay ahayd hawl adag. Jidkoodu wuxuu ahaa mid rajo leh, nuurkoodu wuxuu ahaa mid hididiilo leh, xooggoodu wuxuu ahaa doonis, rajadoodana waxay ahayd rumayn wanaagsan oo Eebbe. 5. Kadibna fikradaha qaldan waxay sameeyeen caqligii isbedel doonka ahaa. Intaa kadib waxaa dhacda marba marka ku xigta dadaalkii wuu ka sii yaraadaa isku daygii koowaad. Kadibna mar waliba oo aad go'aan qaadataba, natiijadu waxay ka sii xumaataa natiijadii kuu soo baxday isku daygii koowaad. Waayo go'aan aadan aaminsanayn in aad ka miro dhalin karto misna aadan gelin dadaalkaagii ugu badanaa oo aadan joogtayn, siday suurtagal ku noqonaysaa natiijadu in ay ku farxad geliso oo aad ku qanacdo. Haddaba intaas ayuu ka egyahay muuqaalkeena. Tan iyo muuqaalkiisa xiga intaan ku kulmi doono waxaan igaga tegayaa sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.